مسلمين رحب منتظرين بنترحب زادنا صيامنا ومن العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan ambalyo iyo bogaadin u dirayaa ummadda muslimiinta meel ay joogto guud ahaan gaar ahaanna ummadda Soomaaliyeed munaasabadaas oo ku aadan ama ambalyadaas oo ku aadan munaasabada bisha barakaysan ee Ramadan oo maanta oo jimco ah u bilatay ama u dhalatay ummadda muslimiinta ah. waxaan ognahay shahra Ramadan waa bil cibaado waxaana loola jeedaa oo qasiga ugu weyn ama muhiimadeeda ugu weyn muhiimad badan bay leedahay in Ilaahay laga cabsado. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلهي إن لقى بقوية إلهي إن لقى درصده. قضبك اللواد وبشي قرآن لسودي شيء إلهي تبارك وتعالى تنزيل وشرعي إلهي وكتبتي سماوي وهذا وختمي إن لسودي شيء وإلهي وبشا فضل قاسي waxaan loo baahayaa ummadda muslimiinta inay quraanka akhrido quraanka inay aad u akhrido bishaas. Ilaahay tabaaraka wa ta'ala waa kitaabkiisa ku yiri shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. waxa weeye munaasabadaas waxaan rabaa in laga faa'iideysto xumaanta in laga dhowrsado wanaagga iyo khayrka lagu dadaalo quraanka la akhriyo la iscafiyo oo la isu qalbi xaadnaado. waxaa kale oo aan intaa ku dari lahaa waxay ku soo aaday bishan Ramadan sanadkan xilli adduunka uu aafeeyey cudur dilaa ah oo dunida oo dhan saameeyey oo noloshii saameeyey oo dhaqaalihii saameeyey oo isu socodkii saameeyey ومساجدي سامي وبل حرمينكي سامي سيدا دراديد waxaa dhici karta in su'aalo badan la iska weydiiyo sidee loo tukanayaa taraawiixaha iyo salaadaha kale faraa'idda. waxaa jirta caalamka islaami iyo jaaliyaadka ku dhaqan dunida gaaladaba aan muslimiinta ahaynba in aysan tukan jimcaha iyo jamaaca waqti dheer ilaa dhowrkii wiig ugu dambeeyay ama dhowrkii isbuuc ugu dambeeyay waxaa jira jaaliyaad islaami ah oo aan tukan jimcaha iyo jamaaca midna kuwaas iyagu dabcan taraawiixu sunno ahna dunida muslimiinta maadaama cudurkaas sida degdegana u faafaya dilaagana uu jiro waxaa fiican dadka muslimiinta horta ilaahay inay ka baqaan oo qofka hadduu xanuunsan ay gurigiisa u joogo. haddii masaajidii anzimada iyo maamulada ka jira meelahaas muslimiintu wadada muslimiinta ama gobolada muslimiinta haddii ay gol yihiin masaajidda in lagu tukado iyadoo azmadan jirto dhibkani jiro waxaa wanaagsan qofka muslimka ah hadduu isku arko calaamadaha inuusan masaajidda muslimiinta iman oo uusan ku tukan jimco iyo jamaaca iyo taraawiix midna. waxaana waa wax muslimiinta soo mari jiray bal muslimiinta in la dhibo ma banaana muslimiinta in la dhibo ma banaana basal iyo jamaaca buu sidaas qofkii kaga baaqda. salaad sunna ah iyo jamaaca sunna ah waa min baab al-awla way qofku inuu gurigiisa joogo ilaahayna uu ka baqo. maraakista iyo culimada masaajidda iyana waa inay dadka ku wacyigeliyaan in qofka jiran uu gurigiisa joogo. haddii looga leeyahay masaajidda inuu ku tukadaba inuu gurigiisa joogo uusan muslimiinta si uusan u dhibin oo cudurka u gaarsiin uu gurigiisa joogo. muslimiinta gudaha waxaan rajaynayaa bil barwaaqo ilaahay inuu uga dhigo cudurkana ilaahay inuu kaga qaado muslimiinta dhammaan iyo ducafada kale inay cudurka kaga qaado. inta dhimatay ilaahay ee cudurka u dhimatay ilaahay inuu naxariisto. inta uu liidatay u daranna ilaahay inuu caafiyo. intuusan ku dhicinna ilaahay inuu ka badbaadiyo. مشاكلات كلام دون المسلمين تيو سؤال جراب هايستي أنا إلى إن مشكلة كقاضي قلوب تدرس تجديو هذا وبالله التوفيق.